Kusoo dhawaada casharkeena koowaad ee ah horudhaca computerka ama introduction of computer. Casharkeenan waxaan uga hadli doonaa horudhaca computerka iyo fahamka aasaaska computerka. Dhammaan computerada isku shaqo ayay qabtaan. Horta computerada waxay u kala baxaan desktop oo ah kan halkan kaaga muuqda, kan oo ah desktopkii oo ah all in one la yiraahdo, iyo laptop oo ah kan halkan kaaga muuqda. Desktopkan aad u jeedo waxa ag yaala monitor waxa la dhaho, oo ah dhammaan waxyaabihiisa waxa ay ku jiraan halkan. Haddii ay tahay memorygiisa, haddii ay tahay wax walba oo la isticmaalayo oo computerka la xiriira, waxa ay ka soo galaan halkan. Kanna dhammaan waxyaabihiisa waxay ka soo galaan shaashada gadaasheeda. Shaashada gadaasheeda ayay ka soo galaan dhammaan waxyaabaha computerka uu ku shaqeeyo ee la isticmaalo, waxyaabahaas oo aan dib ka arki doono. Waxa ku soo haray kan oo laptopka ah, waxay ka soo galaan keyboardka hoostiisa ama meeshan hoosteeda ama dhinacyada. Okay. Inta ugu badan computerada la isticmaalo waxay u badan yihiin saddexdan. Weliba saddexdan waxaa loo sii kala badan yahay kan iyo kan. Kan oo ah desktop all in one iyo kan oo ah laptop ama notebook. Okay. Muxuu ka kooban yahay computerka marka? Computerka wuxuu ka kooban yahay hard disk drive iyo solid state drive. Halkan waxaa kaaga muuqda C iyo D. Hard diskahaaga ama SSD-gaaga wuxuu ka koobnaan karaa qaybo badan. Halkan waxaa noo yaala local disk oo C ah. C-da waa meesha ugu muhiimsan hard diskaha, waana meesha ay galayso ama ay ku jirto Windows. Windowska waan baran doonaa. Windowska waxaa la dhahaa waxa uu ku shaqeeyo ama softwareka uu ku shaqeynayo computerkaaga ayaa waxaa loo yaqaanaa window. Hadda maanta waxaan joognaa C-da waxay tahay meesha uu galayo Windowska. Windowskana waa waxa computerka uu ku shaqeeyo. Haddaba maxay kala yihiin hard disk drive oo loo soo gaabiyo HDD iyo solid state drive oo loo soo gaabiyo SSD? Labadoodas ayaa wanaagsan. HDD hard disk drive waa midka inta ugu badan computeradu ama laptopyadu ay kusoo degaan, waana midkan aa u jeedo. Wuxuu leeyahay marwaxad yar oo halkan ku jirta, waana tan shaqada qabanaysa ama xogta kaydinaysa. SSD wuxuu kaga fiican yahay hard diskiga. SSD-gu ma lahan marwaxad ama guux ma laha. Haddii aragto computerro marka la isticmaalayo ama laptopyo guuxaya, waxaa ku jiro HDD ama hard disk drive. Waa jibiskan yaryar waxa uu ku shaqeynayo SSD-ga. Waxaan rajaynayaa in aan fahanay. Okay, memory. Haddii aan soo aragnay hard disk drive oo hard diskiga uu yahay waxa kaydinaya xogta ama fiidiyoyada ama sawirada ama xogaha kale ee computerkeena aan ku shubano, waxa kaydinayo uu yahay hard disk drive-ka. Hard disk drive-ka mar walba xogta aad ku shubat inaad adiga ka tirtirta maahane wuu ku kaydinaya. Balse memory waxa weeye ama wuxuu yahay computerka intuu shidan yahay waxyaabaha isticmaalaysid ayuu ku kaydinaya. Wax waliba oo aad qortid markaas aad qoraysid ayuu ku kaydinaya memoryga. Waxa hadda Google ka search garaysa adoo computerkaaga isticmaalaya waa waxa kuu fududaynaya ama ku haya waxyaabahaas aad qabanaysid computerka intuu shidan yahay. Okay, mouse. Mouse waxaa loo isticmaali karaa qaybihii aan soo aragnay ee computerka oo dhan. Qaybihii aan soo aragnay oo dhan waa loo isticmaali karaa mouse-ka. Kan waa loo isticmaali karaa, kan waa loo isticmaali karaa, kanna waa loo isticmaali karaa. Okay, mouse-ka muxuu yahay? Mouse-ka sidaa aragtaan in badan inaad aragteen waa macquul, balse haddii ay kugu cusub tahay, mouse-ku waxa uu yahay waxa filaartan hadda aad u jeedo dhaqaajinaya. Filaartan hadda aad u jeedo waxa dhaqaajinaya waa mouse-ka. Okay. Waxaa loo isticmaalaa in hadba meesha aad rabto lagu geeyo computerka si aad u isticmaasho. Mouse-ku wuxuu leeyahay labadan meel oo la isticmaali karo iyo bahashan oo sida taayarka camal ah. Labadan meel waxaa la kala dhahaa click iyo right click.
waan sii baran doonaa kelig iyo right kelig waxa ay kala yihiin shaqooyinka ay qabtaan balse hadda waxaan rabnaa faham guud inaan ka qaadano computerka. Okay, touchpadka waxaa laga yaabaa inaa in badan ku aragtay laptopyada. Okay, touchpadka wuxuu yahay waa sida shaashada farteena ku isticmaalayno oo kale, wuxuu ku shaqeynayaa fartaada. Halkanna waa sida hadda aan soo aragnay oo kale, kelig iyo right kelig ayaa loo kala yaqaanaa, waana baran doonaa waxyaabaha ay qabtaan. asna sidii hore oo kale wuxuu ku shaqo leeyahay falaartan oo hadba meeshii aad rabto shaashada computerkaaga aad ka geyn karto. touch screen laptops, touch screenka badanaa waxaa isticmaala laptopyada. touch screen waa sida mobilka oo kale, asna wuxuu isticmaalayaa falaartan, waana shaashada computerkaaga oo aad ku isticmaalayso gacantaada. Okay, ayadana waxyaabaha ay qabato waa falaartan in ay wado ama meel walbo aad rabto sida mobilkaaga oo kale, mobilada smartiga ah waa inaad u isticmaasho computerkaaga ama laptopkaaga. Okay, connectors maxay yihiin? Connectors waa meesha ay wax ka soo galaan, waxyaabaha outputka ah, meelaha ay ka soo galaan inta ugu badan laptopyada iyo computerada. Si deeply ah waxaan rabaa inaan u sharaxno connectors maxay yihiin. Connectors in badan waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay laptopyada ama computerada. Godadkan dhammaan computerada iyo laptopyadu intooda ugu badan isku mid ayay ka yihiin. Haddaba godkan ugu horeeya maxaa loo yaqaanaa? Godkan ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa LAN. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Ethernet, waxaana ka soo gala fiilada internetka computerka. Halkan haddii yacni uusan ku qornayn magaca, laakiin waxaa computerka ka soo gala jaajarka. Waa macquul inay ku kala duwanaadaan computerada ama laptopyada, balse halkaas idin muuqata computerka waxaa ka soo gala jaajarka. Halkan waxaa ka soo gala fiilada internetka. Sidoo kale halkan waxaa computerka ka soo gala VGA badanaa waxaa loo isticmaalaa projectorada. halkan waxaa kasoo gala computerka HDMI. sidoo kale iyadana waxaa loo isticmaalaa projectorada ama shaashadaha waaweyn markii computerka lagu xiriirinayo. sidoo kale halkan computerka waxaa kasoo gala USB waa labadan god. halkan computerka waxaa kasoo gala memory card ama hadday u taqaano flash disk. flash diskiga waa memerooyinka loo isticmaala kaamerooyinka, sidoo kale waxyaabo kale oo badanna waa loo isticmaalaa. halkan computerka waxaa kasoo gala headphone oo loo yaqaano dhagaha la isticmaalo in wax lagu dhageysto, in wax kale loo isticmaalo. sidoo kale halkanna waxaa kasoo gala computerka mic. waa macquul computeradu dhammaan inaysan yeelanin waxyaabahan, balse sida commonka ah ayaan ka hadlaynaa. waxaan rajeynayaa in badan in aan ka fahanay waxyaabaha loo isticmaalo computerka. waxaan rajeynayaa in intaan ay noqoto fahankaagii ugu horreeya ee computerka. sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo computerka markaa iibsanayso loo iibsado. haddii aan dib u laabto, halkan waxaa noo yaala SSD iyo HDD. marka computer iibsanayso badanaa computerka wuxuu kusoo baxaa HDD, balse waxaa wanaagsan SSD inaad u iibsato computerkaaga. sidoo kale computerka waxaa loo firiyaa memory ama RAM waxa loo yaqaano. RAM-ka waa waxa computerka xawaarihiisa يعني fududeynaya. computerada badanaa ugu wanaagsan inaa iibsato RAM-kooda waa computer RAM-kiisa uu ka bilowdo 8 ama wixii ka koreeya sida wanaagsan. 4 ma xuma, balse waxaa wanaagsan inaa iibsato computer RAM-kiisu uu yahay 8GB ama wixii ka koreeya. sidoo kale haddii aad isticmaalayso SSD ama HDD computerka hadiskiisa waxaa wanaagsan badanaana ay computerada kusoo baxaan 500 oo GB ama ka badan 1TB oo kale. 1TB haddii aad fahmin macnaheedu waa 1000GB macnaha. waxaan rajeynayaa cashirkan in aad loo fahmay. cashirkan ugu xiga wuxuu noqon doonaa sida loo isticmaalo computerka iyo waxa computerka uu ku shaqeeyo oo ah Windowska. waxaana baran doonaa insha Allah Windows 10 iyo waxyaabaha ugu horeeya ee ugu muhiimsan computerka. haddii Windowska aadan aad u fahansaneen ma isticmaali doontid ama awood uma yeelan doontid in aad isticmaasho computerkaaga. aad u mahadsan tahay. intaa ku kulmi doonaa cashirka kan xiga. sidaas iyo